السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta ay bisha June tahay 6/20/2020 wararka diblomaasiyadeed ee dunida ku hayno waxa kamid ah maanta waxaynu halkan ka hadli doonaa hadaan nahay howlwadeenada Belkhair TV arrimaha gobolka iyo masiiriga ah ee ka socda wadamada Jaarka iyo gobolkaba su'aalahan hadaynu soo qaadano sida Liibiya, Masar iyo Soomaaliya. bal haddaba intaanan u guda galin warka waxaan idin ogeysiinaynaa maanta ama aanu idin dhibina codsigaas oo ku socda dhammaan asxaabta channelka ku xidhan waxaanu si sharaf leh oo xurmad leh aanu idinka codsanaynaa in aanu idin hayno anagu haddaanu nahay howlwadeennada Belkhair TV warar xiiso leh aan idin soo gudbino sida wararka sirdoonka, dhaqaalaha, teknolojiyada, wax kasta oo war kasta oo saacad walba kusoo kordha dunida ayaanu jeclaynaa inaan soo gudbino maadaama ay sidaa tahay dadka daawadayaasha ama dhageystayaasha waxaanu aad uga codsanaynaa in channelka inta ku cusub ay subscribe ay siiyaan ayna share gareeyaan. taas waa codsi xagga ka socda intii hore ugu jirtayna aad ayaan mahad u celinaynaa inta nagu soo biirsan waxaan leenahay soo dhawaada balse hanala dhaafina oo hanala garabarina subscribe-ka share gareeya newska markasta aan soo dhigno. taas waa codsi inta hadaynu daawadayaal iyo dhageystayaal ka gudubno maanta halka aynu ku lafaguraynaa wadamadaas aynu soo sheegnay oo ay kamid yihiin Liibiya. aynu ka horeyno dalkaasi Liibiya waxaanu ku soo qaadanaynaa faallo ku saabsan taasoo aynu kaga hadli doono wadamadaas aynu soo sheegnay. saad la wada socotaan waxaa jira dalka Liibiya aynu Jaarka aynu nahay ama bariga Afrika aynaan ku kala fogeyn oo dad aynu wax walba wadaagno. waxa saad la socotaan waxa ka socota xaalad aad u qallafsan ama aad u adag waayo dalka Liibiya waa dal aad iyo aad maaragtay ugu nugul dagaalada hadda ka socda ee naafiyay dalkaasi oo dal hadda lagu loolamayo quwada shisheeye ayaa ku loolamaya saad la socotaanba ama aan ilaahay quwadaha dunida ugu waaweyn qaar kamida ayaa ku loolamaya iyadoo ay sidaas tahayna waxa hormood ka dagaalkaasi Liibiya dalka Turkiga kaasoo dal raba in uu ka dhaliyo nabad waarta ama lagu soo dabaalo maaragtay dalkaasi nabad waarta waayo waxa aad isku dhow oo heshiisyo badan ay wada galeen dalka Turkiga iyo maamulka hadda la aqoonsiyay qaramada midoobay ee aqoonsantay ee dalkaasi Liibiya ee hadda maaragtay ay dunidu inteeda badan aqoonsan tahay. ta kale waxa dhanka kale isna raba in uu dagaal ka huriyo waa sida hadda muuqata dalkaasi Masar oo isaguna xaaladiisu u eg tahay dal kale oo isna aaminsan ama u muuqda inuu leeyahay dana siyaasadeed uu soo kaleeyay balse wuxuu iska dhigayaa dalkaasi waa isqarnay wuxuu iska dhigayaa sidii mid shacabka dadka uu maartay gargaarayo oo ku taageeraya xagga qalalaasa wadkaasi ka socda. balse taas waa arrin gaar ah dawladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay ayaa sheegtay in qorshayaal laga wada hadlay ay ka wada hadleen madaxda taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika oo loo yaqaan Africom si wadajir ay uga wada hadleen in wadajirka loolanka ka dhaxeeya dalalkaasi taasoo ay iyagu ay leeyihiin waxaan la dagaalamaynaa waa argagixiso ee wadankaasi dagaalku ka dhacaya intii lagu guda jiray kulankii ay wada yeesheen ra'iisul wasaaraha Fayez al-Sarraj iyo wadahadaladii Liibiya Mareykanka ayaa lagu qabtay iyadoo ay wasiiradaasi arrimaha dibadda ee ka socda Jaamacadda Carabta ee Talaadadii ay ku yeesheen kulankaasoo si degdeg ah loogu doonayay in xal loogu helo xal diblomaasiyadeed dhahday oo ka dhaca Liibiya iyadoo ay sii kordhayaan fargelinta shisheeye ee dagaalka sii xoogaystay ee baahnay ka socda dalkaasi. Fayez al-Sarraj oo wakiilka Mareykanka ee Liibiya iyo danjiraha Mareykanka ee loo yaqaan dalka Norway ee magaciisa lagu sheegay Richard Norland ayaa yiri wada hadalka qaab dhismeedka wadatashiga ee ku saabsan isbedelka xaaladaha Liibiya. labada mas'uul ee Mareykanka ee ka soo degay gaga diyaaradaha ee Suwara oo qiyaastii u jirta 120 kilomitir ama ay dhahdeen 100 mayl galbeedka caasimadda Tripoli oo kulanka waxay wada hadal ku yeesheen isu duwidda wadajirka ee u dhaxeeya GNA waa dawladda la aqoonsiyay iyo Africom ee la dagaalanka gagashada qaab dhismeedka istaraatijiyadeed ee u dhaxeeya Tripoli iyo Washington. sidaas waxa lagu yiri markii GNA iyagu ay sida ay soo warisay saxaafaddu habka istaraatijiyadeed ee Liibiya ayaa haddaba waxa uu gelayaa arrin cajiib ah. Liibiya ayaa
waxay ku burburtay rabshado ka dhexeeya ama ay ka dhex wadeen maleeshiyad qabiil kuwaasoo dalkaasi ilaa intii uu geeriyooday madaxweynihii waddankaasi xukumayay muddada dheer ku dhow dhowr iyo 30 sano ahayd madaxweyne Muammar al-Gaddafi in kooxo qabiilo iyo kooxo ka socda qabiilada dalkaasi uu ka kooban yahay oo iyagu isku soo horjeeda iyo kooxo kale oo ajaanib tan iyo sanadkii 2011 kicitaankii iyo dilkii kale taliskii madaxweynihii hore ee Muammar al-Gaddafi kacdoonkaasi oo ay iyagu ay baritaarayeen ama ay ka dambeeyeen dalalka reer galbeedka in wadahadalka Mareykanka iyo GNA wuxuu yimid maalmo kadib markii Africom ay sheegtay in ay cadayn ay u tahay diyaaradaha militariga Ruushka ee ka howlgala hawada Liibiya iyagoo adeegsanaya in fariisinka hawada ee Jufra ee magaalada muhiimka ee Sirta ee bariga caasimadaasi ee waddankaasi Liibiya waxa ugu dambeyntii ee Liibiya haatan u baahan tahay waa sida aanu hadaanu nahay bil khayr TV aanu helay waa dadaalo diblomaasiyad oo badan abaabul military oo dheeraada iyo hub badan oo la wareejiyo oo laga farmuroojiyo nimanka gacanta ku haya taasoo lagu qancinayo in dalkaasi lagu qanciyo in ay dadkaasi loo daayo dalkooda oo madax banaanada laga daayo farigelinta shisheeye lagu hayo iyo joogitaanka ciidamada ama dagaalyahanada shisheeye ama caloosha shaqaystayaasha oo dalkaasi laga saaro taas waxaynu ku dhaafaynaa intaas iyo waxaynu ku dhaafaynaa dalkaasi Liibiya iyo faaladaasi in hadaba marka ugu horeysa waxaynu ka hadlaynaa saynu ognahay dalka Soomaaliya waa dalkeeni hooyo oo waa dal ku yaala baqcad aad u muhiim ah oo istiraatijiyadeed haday tahay xagga dhaqaalaha haday tahay ganacsiga iyo haday tahay isu socodka dunida iyo isku xidhka bariga Afrika iyo inteeda kala dunida haddaynu eegno hadaba xagga wadahadalada Soomaalida kaasoo u dhaxeeyay Somaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliya naxde waxa la wada socotaan in dhawaan lagu qabtay shirkaasoo lagu lafagurayay arrimaha masiiriga ee u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya taasoo ay baritaaraysay dalalka deeqda bixiya ee ugu horeeya ama ugu tukawayay Mareykanka midowga Yurub iyo Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa iyo erga ka socota midowga Yurub hadaba in aan idin xasuusiyay shirkii Soomaaliya iyo Somaliland ayaa lagu sheegay in ugu dambeyntii la isku raacay shirkaasoo ka soconayay horaantii weeyii aynu soo dhaafnay dalkaasi Djibouti oo ah dalkii qabtay shirka inay ku wada hadlaan dawladda Soomaaliya iyo Somaliland ee baritaarayso beesha caalamka ayaa waxa ka soo baxay qodob kale oo aan ahayn kuwii hore lagu sheegay markii uu shirku dhamaaday inay sida ay bil khayr TV heshay ay tahay in beesha caalamka ay cadaadis weyn ku saartay oo taasoo ay uga wada hadlayaan arrimaha masiiriga balse ay marka laga yimaado sababta dawladda Mareykanku ayna tahay sababta ugu weyn ee dawladda Mareykanka iyo dalalka deeqda bixiya ee caalamkuba ay uga warwarsiin waqtigan xaadirka in ay ka muuqato in lacagtii deeqihii la bixiyay in la siiyay Soomaaliya iyo Soomaaliya aan wax badan laga qaban sidii loo maamuli lahaa lacagahaas deeqaha ee la siiyay taasoo ay ku sheegeen dalalkaasi deeqda bixiya in ay ahayd in sidii loogu talagalay loo maamulo balse lacagahaasi aan loo maamulin lana geliyo meelihii loogu talagalay ee muhiimka amaba waxtarka u leh ummadda Soomaalida sidoo kale beesha caalamka ayaa cadaadis xoogan oo siyaasadeed saaraysa sidii ay wada hadaladaasi labada dhinac ay u sii wadi lahaayeen iyo waxyaabaha la sheegay waxa kamid ah tusaale ahaan oo kale in aan la carqaladeyn ama aan la siyaasadayn isdhexgalka arrimaha fanka iyo dadka ka socda ciyaaraha iyo sidoo kale dadka ganacsatada taasina ay noqonayso sidii loo dhisi lahaa is-aaminid isdhexgalka iyo kalsoonida bulshada waa sida lagu sheegay qoraalkaasi hadaba iyadoo ay runtu saatay laakiin xagga Soomaaliya ayaa iyaduna ogolaatay in aanay siyaasadayn deeqaha caalamku bixiyo ee uu siiyo waxa laga soo saaray warkan qoraalka ay dawladda Djibouti oo halkii shirka lagu qabtay ama madasha shirka lagu qabtay waxa kale oo lagu heshiiyay in kulmaan gudiyo farsamo iyo sidoo kale golo wasiiro oo ka kooban labada dhinac muddo 45 cisho ah oo laga tirinayo ama ka bilaabmaysa maalintii shirku xidhmay waxa iyaduna jirtay arin cajiiba oo aanay inta badan dadka Soomaalida aanay fahansaneyn oo ah
waa maxay sababta beesha caalamku ay u saarayso cadaadiska xoogan ee hadda kaga imanaya dunida inteeda kale iyo arrimaha noocaasiya inkastoo ay tahay in dadka Soomaalida ay kala fahmaan waxyaabaha waaqiciga iyo waxa uu qofku isagu doonayo kuwaas oo laba kala duwan oo in aanay la isku qaldin waynu ognahay oo dadka Soomaalidii waa dad aad u in ay u daashatay dagaalo aad u baahsan waana kuwa ay dadka Soomaalida ay ku soo jireen dagaalo fara badan taasoo keenaysa in ay u nuglaadaan ama ay u jilicsanaadaan waxyaabo badan oo maaragtay ama ay luus gareeyaan waxyaabo fara badan oo in masirigooda hadday tahay dawladda iyo hadday tahay dhanka shacabka sida kaabayaasha dhaqaale iyo maxaan ku idhahdaa arrimihii oo burburay oo wali alaankaan aan soo noqon ugu dambeyntii waxa hadda ka soo baxay in uu Mareykanku wadamada uu isagu hormoodka u ka yahay ama ugu weyn yahay ay dabada ka riixayaan shirkan ugu dambeeyay ee lagu qabtay dalka Djibouti lagu qabtay Soomaalida waayo waxaad garan kartaa markii horeba waxa isna shir maxaan ku idhahdaa shirar badan oo qabtay dalka Turkiga oo isna aad iyo aad u daneynayay inuu isu keeno dadka Soomaalida laakiin taas bedelkeedii waxa hadda aad dareemi kartaa oo hadda heshiiyay dalka Mareykanka iyo dalka Turkiga taasoo ay ku heshiiyeen in ay labadoodu isku soo dhawaadaan una Turkiga ku wareejiyo arrimaha Soomaalida ee uu Turkigu ka ahaa dhexdhexaadka dalka Mareykanka ayaa markaa aad iyo aad u daneynaya in uu hadda dabada ka riixo arrimaha Soomaalida ee gobolka taasoo ay ku jirto Soomaalidu in waxaan ka rajeynayaa shirkan inuu ka soo bixi doono in wax aad u wanaagsan ummadda Soomaalida oo Ilaahay maaragtay uu dadka Soomaalida isu soo dhaweeyo waayo dadka Soomaalida waxa weeye dadka kaliya ee iyagu istaneynaya waxay wadaagaan diin waa dad wada dhashay in arrimaha gobolka imika waxa ka socda dhibaatooyin fara badan haday tay dhanka Ethiopia waxa isku haystaa in Masar iyo waxa isku haystaa iyo Ethiopia in Suudaan iyaduna kama maqnaa xaggan kale Liibiya waxay noqotay goob lagu loolamayo oo dunida lagu loolamayso halka aad warkaasi kala socotaa waa Bilkhayr TV